Iran Media. Iran Media YouTube. Iran Media. guddiga amniga caasimadda ee gobolka Banaadir oo digniin u soo diray bajaajleydii maalin dhaweed ku banaanbaxay iyo qaar la maxkamadaynayo banaanbaxayaashii rabshadaha wata maalin dhaweed caasimadda Muqdisho ka dhacay. Kusumaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shir amniga looga hadlayay xaaladda amniga ee dalka gaar ahaan adkeynta amniga caasimadda dalka Muqdisho. Shirka amniga oo ay ka qayb galeen guddi loo xil saaray sugidda amniga caasimadda ayaa looga hadlay mudaharaadkii ka dhacay caasimadda dalka maalin dhaweed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Enka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka warbixiyay natiijadii shirka ayaa sheegay in la isla gartay in bulshada Soomaaliyeed ay muujin karaan shucuurtooda oo ay la xisaabtami karaan dowladooda si nabad ah ayuu yiri. Guddiga oo xil saaran amniga caasimadda ayaa shirkooda ku cadeeyay in bajaajleydu ay qayb muhiim ah ka yihiin bulshada, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dowladuna ay si dhow ula shaqaynayso oo ay dhiirigelinayso. Guddiga amnigana ay la kulmayaan guddi ka socda bajaajleyda si loo dardargeliyo wada shaqaynta waxaana sidoo kale jiri doono kulamo joogto ah oo ay wada yeeshaan guddiga amniga caasimadda iyo guddi ka socda bajaajleyda. Guddiga amniga ayaa ka digay in la sameeyo mudaharaadyo rabshado wato ayna mamnuuc tahay in magaca bajaajleyda ay isticmaalaan shakhsiyaad doonaya in amniga ay carqaladeeyaan oo qalalaase geliyaan caasimadda dalka kana mana yeelayno ayuu yiri Cumar Cismaan Yariisow, gudoomiyaha gobolka Banaadir. Guddiga amniga ayaa shacabka ka codsaday in laamaha amniga iyo maamulka gobolka ay kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo hagaajinta bilicda caasimadda. Ma aha markii ugu horeysay banaanbaxyo noocaan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho, waxaana lagu wadaa in la maxkamadeeyo dad maalin dhaweed lagu soo qabtay banaanbixii rabshadaha wata ee ka dhacay caasimadda Muqdisho. Haddaba guddigii hadalkooda waxaa ka mid ahaa sida tan. shirkii amniga oo uu noo shir gudoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, waxaan uga hadalnay arrimo fara badan oo amniga gaar ahaan amniga caasimadda. Waxaan si gaar ah uga sii hadalnay shalay iyo mudaharaadyadii ka dhacay magaalada iyo dhibkii khasaarihii geystay. Waxaa si hoos looga xariiqay in faldambiyeedka noocaas oo kale ah in askarigii ka tirsan ciidanka dowladda qof shacab ah dhib u geysta inuusan sharciga ka sarreynin, isla markaasna la marsiin doono ciqaabta ugu mutaysan yahay. Sidoo kale waxaa la qiray in ciidankeenna Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal hari habeenna u taagan bulshada. Waxaa sidoo kale aad looga hadlay inay muhiim tahay in bulshadu ay muujin karaan shucuurtooda, isla markaana dowladda dimuqraadiyadda ay la hadli karaan. Hase yeeshee waxaa aad looga digay in shucuur muujinta ama mudaharaadyada la suubinayo laga ilaaliyo rabshado, laga ilaaliyo in hantida danta guuda wadooyinkii oo kale taayiro lagu gubay iyo hantida ganacsatada in ay tahay waxaan la aqbali karin in shakhsiyaad ku dhex dhuuntaan dhalinyaradii, isla markaasna ay geystaan falal dambiyeedyo kala duwan. sidaas daraaddeed ciidanka booliska waxay gacanta ku hayaan dad fara badan oo arrimahaas loo soo qabtay, qaarna dambiyadii lagu waayay la sii daayay, inta kalena aan rajaynayna in dhowaan la horkeeni doono xeer ilaalintana loo gudbin doono, sharcigana la geyn doono ay mutaysan doonaan. caasimadda iyo horumarkeeda iyo bilicdeeda waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu kaalin ka geysto. dadka nagu soo dhex dhuumanayo raba inay qas ka dhex abuuraan magaalada, qalalaasa geliyaan, waa midaan loo dul qaadan karin oo aan marnaba la aqbalaynin. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa shacabku, dadweynaha inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka, isla markaana aan wada suganno amnigeena guud si aan u gaarno
horumarka aan tiigsanayno marka shirka runtii aad baa looga hadlay arrimahaas waxaa kaloo la soo jeediyey tallaabooyin ayagana hay-adihii ee qusaysay loo diray maamulka gobolka banaadirba lagu ballamay shirkan shirka xiga qorshayaashaas cadcad in la keeno annaga waxaan aaminsannahay bajaajlaydu inay yihiin dad dhallinyaro ahoo shaqo abuur samaystay muhiim u ah bulshada dhaqaalaha isla markaana aan doonayno in aan kobcinno la shaqayno dhiirigelinno hase yeeshee in dad ay kusoo dhex dhuuntaan isticmaalaan magacii bajaajlayda iyadana waxaan aad baan uga digaynaa arrintaas iyadaa waxaan rajaynaynaa marka bulshadana inay nala fahmi doonaan nala qaadan doonaan annagana maamulkii haddii aan nahay waxaan diyaar u nahay inaan la fadhiisanno waxaa noo ballansan bajaajlayda iyo guddiyadoodii inaan la fadhiisanno wax meel isla dhigno isla markaana aan yeelano shirar joogto ah waxaa meesha u joogno waxay tahay inaan shacabka u fududeyno adeegyadooda isla markaana aan badbaadino si taas lagu helana waxay tahay midnimo iyo wadajir inaan ka wada shaqeyno ay muhiim tahay waa mahadsantiin